runtii waxay idin sii sagootiyeysaan barasaabkiinnii hore oo aad u ammaanteen waxqabadkiisina sheegteen waan hubaa inuu leeyahay ammaantaa waan hubaa wixii aad sheegteenba inay yihiin wax mutaystay gudoomiyihiinni hore halkan maanta aad ku sagootiyeysaan waxaanan qabaa ina muxuu ahaa aad soo dhawaynaysaan barasaabka cusub insha allaahu intii aad ka sheegteen barasaabkii horena uu la iman doono oo dardaarankiisa ay ka mid ahayd muxuu ahaa barasaabkii hore ku dardaaray isaguna inaga ballan qaaday imaka halkan inuu degi doono wax qaban doono muujin doono inuu dadka isku hayo waxa aynu gallay maraaxil baynu soo geli jirray oo waa garanaysaa gudoomiye halkan waxa weeye halkii lagu aasaasay Soomaaliland waa buddhigii Soomaaliland waa Boorame oo muxuu ahaa gobolka Awdal madax u ah magaalo madax u ah waa bartii muxuu ahaa waxbarashada iyo aqoonta waa goobihii wax soo saarka qarankani lahaa waxaan u malaynayaa in hawl badan oo aantii muruqahi ka baxay maskax mooyaane inaad u fikirto inay muxuu sidii ay wax u horumarin lahaayeen halka ay taagan yihiin maanta hor uga kici lahaayeen mooyaane inaan muruq badan iyo socod badan aanad ka dareemayn sababtoo ah waa goobihii nabadda halkii lagu aasaasay nabadgelyada Soomaaliland ahdigii qarameedkii hore halkii lagu aasaasay weeyii waad nasiib badan tahay halkan lagu keenay oo aad shaqada ka bilaabayso adiga iyo taliyaha booliiskuba waxa inta ay raacda dee barasaabna waad sagootiyeysaan midna waad soo dhawaynaysaan is aragte buraale waxa isu maqan tihiin waxa weeyaan Cabdiraxmaan waxaan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan iyo soo dhawayn aad soo dhawaysaan oo la shaqaysaan waxaanu ku shaqaynaynaa waxa weeye oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland weerihiisii ama ereyadiisii u dambeeyay ka mid ahaa sharcigu ha sareeyo dad sharciga yaqaanaad tihiin dad xadaariina oo nidaamka iyo kala dambeynta yaqaana weeyaan dadka halkan ku hor fadhiya waxay u baahan yihiin inaad u fuliso sharci iyo cadaalad ugu shaqayso taasaan ku faraynaa oo aanu kaa doonaynaa inaad ku shaqayso idinkana waxa laydinka rabaa waxaan u maleynayaa sidii la sheegay anigu Awdal waan ku soo noqon jiray waana magaaladaydii hase yeeshee inta badan ee arag Awdal daraad waxay ahayd iyo maanta waxay tahay ayay ku kala muuqanaysaa qarannimada Soomaaliland maanta waa dal dhisan oo degan waxaan shalay ugu soo kala tirinayay bari baan qabtay waxa nasiib badantii waxaana keenaysaa oo aan ugu baaqayaa walaaladayda muxuu ahaa gobolada bari inay sida ay gobolada galbeed wax u qabsanayaan oo qabsataan kolkaas aad gaari doontaan kolkaas aad la tartami doontaan kolkaas aad la ficiltami doontaan intaasi maqan tahay intaas isu jiraysaan ogsoonaada aad iyo aad baad mahadsantihiin maanta war badan iima yaalo imika waqtigan aynu maraynaana waa aamin oo waa waqti dambe oon soo yar habsaanay saaka taalifteeda waan u fududaynayaa dee ninima waaye bismillaahi raxmaan raxiim waaye malaa'igtii hore waa maqasheen waxba dir ku celin maaye waxaan horta marka hore u mahadnaqayaa ilaahay mahadda labaad waxa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u mahadnaqayaa oo u hambalyaynayaa barasaabka iga horeeyay ee hawsha badan loo qiray inuu qabtay waan u hambalyaynayaa una ku maasay hadalka intaan u lahaa laba nin baa yiri maanta xogayaa xisbiga iyo xildhibaanka
علي أوباما sababtu ay waxa weeye wixii aan qaban lahaa bay sheegeenba wixii aan anigu doorkan aan ku tala galay inaan qabto waa horumarin iyo wax qabad maamul fidintii waa laga soo gudbay la xisaabtan baa yaala wixii kasta ee dhaca in laga xisaabtamo iyo in wax qabad gobolkan wax loo qabto waana aan wakiil kaga ahay madaxweynaha una wadahay gobolkan maxaafid mucaarad gudoomiye wayna soo dhamaatay waqtigaasi waxa la nooga baahan yahay inaynu midnimo ku wada shaqeyno waxaana leeyahay ila shaqeeya waa ila shaqeyn doontaan insha Allah billahi kariim aniguna waxaan ballan qaadayaa inaan gobolka dego oo talagalkayga ah oo aan noqon wixii duruufi keento mooyaane aan kulli nin dhayal ku baxaya ama ku tagtagay aan ahayn insha Allah billahi kariim waynu wada shaqeyn doonaa hadalka maanta badin maayo sidaas ay noo ballana dee dhankay ka baxdaa waa bakay la galay